بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وحنو سعوتي وحيتهي قصدي نو موسى عليه الصلاة والسلام إن لبدي قبلوت وعاويي إسلامكا مد كمد قبله أي أتمادي هذا أبه يكو وعيا سيؤكا أوال مغيو وحا ونكسن آدنو سميسي نبي موسى عليه الصلاة والسلام يقبدي وي إسراعين مركي إسراعين وحي أوي مادان وحيتهي آبها وحال الشيء وحيتها إنو يا نبي شعيب والمدى قاربه وحبيت الأمان لكن دليل صح أهله ما هايو هدان كودنو آبها كدب إلهي سبحانه وتعالى وحوتنا وحيتهي فلما جاءه وقص عليه القصص إلهي سبحانه وتعالى وحوشة وحيته مكة وإمادي وجدد وإمادي وحي أهد إن أول مريو لكن وحد عليه وحيته وحكبر أي دعي أو إن وقص عليه القصص قصدي دحمرتي أسير فرعون ظلم فرعون وكوها غير بني إسرائيل دباتها فرعون وقلب صد المها ويلش أهلا ودل جيري يدك كوش قيسن جيري دتك وحر وكوسمين جيري يوحي لمت أردن وكوسمين جيري أي وشكي كدب أي أبيه ونكسنا وحودها وحيتها لا تخف نبي موسى cabsanin نجوت من القوم الظالمين واتكبت باديسا قومك ظلمك يا حمان تذا يا دباتذا وضع ما تقانا وحا عن كبرنين قصدا انت يا قصدا وحان كبرنين وحنو لشين او دن نو وناكسن او محيتهاي هدي اد لكلان تتقف دباتيسن اما دبهايا اما مرغيسن اما ميل اون لغا هايا dhibaato uu ku sheegto qaabka loo baahan yahay in aad la dhaqantid oo waqassa calayhi alqasas wiligaaga hadii am cunugaaga ugu yar uu ku yimaado oo dhibaato uu ku sheegto ama dib haysta ama qof weyn saaxiibka saaxiibadaada wixii la mid oo dhan waqassa calayhi alqasas dhageyso ha degdegin ha xukminin ha dhaxgelin laakiin waqassa calayhi alqasas dhageyso dhageysiga waa xalka ugu wanaagsan qofka nafsadiisa ay ku degeyso dhageysiga waa xalka ugu wanaagsan qofka kala dareemaya inuu helay qof kala dhageysanaya dhageysigu waa badbaadada iyo maskax furnaanta iyo maskax fiyowga caafimaadka ku jirta way waqassa calayhi alqasas weligaaga hadii ay jirto dhibaato qof uu ku sheegto ama adii xitaa ku haysta raadso qof ku dhageysta waa xalka ugu horeeyo lagu xaliyo xitaa culimada psychology-ga oo wixii la mid ay ku xaliyaan number 1 maxay tahay inay ku dhageystaan dad baa waxay dhaheen waxay tahay waxaan jecelahay waxay tahay qofna dhageystayna hal waa sax lana qof ku dhageysta waa qofka fikraya caafimaadkaaga lidaalika ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu nagu barayaa waxay tahay in hadii dhibaato dhacdo iyo wixii la mid qof dhibaato haysta aragtid ha xukmin dhageyso marka dhageystid kadib la takhaf kadib adiga wixii arabtid ka hadal oo qofka aad dejinaysid kadib wuxuu la takhaf cabsanin sababtoo nabi muuse cabsi baa ka muuqdo maalmo dhan buu magaalada soconay meel uu socdo ma yaqaan yataqab bal socod kaliya ma ahan yataqab asoo is ilaalinaya sababtoo magaalada fircoon baa haysta ciidamadiis baa haysteen ciidamada waxa lagu amray waxay inay muuse soo raadiyeen ay soo qabtaan meeshii ay ku arkaan inay ku dilaan waa la amray ayadoo sida ay cabsidaas iyo wix la mid ah dhammaan وكل واحد لا تخف cabsanin نجوت من القوم الظالمين وكبد باديسا ظالمينت يعني وحابة ليس وحيتهاي هذا الكينو موسى عليه الصلاة والسلام وكدو عيسانة مكو مغالك بحيي ربي نجيني من القوم الظالمين ربي يقبد بادي قوم كظالمين جوابت هذا يعني وحكبرنا وحيتهاي نينكا صالحة وناكسن حكمديسا إلهي سبحانه وتعالى نوصو الشيغي وحكمد قفك دباتيسن وحا جعل يحي مقاشي نجوت من القوم الظالمين وكبد باديسا قودتك الظالمين ونوموس وحا جعلان لها إنو مقلم محيتهاي إنو كبد بادي صوبتو وحوجوا مقالة مدين مقالة أولونا معهن فرعون يعيدمدي السلام كان فرعون يعيدمدي محكم جيران سيدا تاريخ علماء أي شيئان لذلك وحيت إلهي سبحانه وتعالى قصص لا يونق بغيا
kadib waxaa dhacay waxay tahay markii uu nabi muuse qisadii uga sheekay aabbaha uu dhageystay aabbahana uu dhahay cabsanin gabar ka mid ah gabdhihii wiilka ninka wanaagsanaa dhalay waxay ku dhahdeen waxay tahay yaa abati ista'jirhu aabow ninkan noo shaqaalaysii يعني شقالنا ودق يعني هنوص ما يوحي وناكسنا أيها مؤجو إنه نقون دون نبي إنه نقون دون مؤجو لكن دن توضا وناج بدن أي كف جران يا أبا تستأجره أصيرنا دن إنه هلا مال هو إذا مال سيحضر مال كون تايو أيها وشقي وحلمت يعني ودن وناكس إسلامك أصيرنا بتبادأ يا أبا تستأجره nin la soo dhaweystan nin fiican waa nin aad amiin badan nin oo qawi badan nin awood badan waa oo aad u fiican oo aqli badan xigmad badan aabo soo dhaweyso aabaha wanaagsan waxa lagu gartaa waxay tahay gabadha xigmadeeda ayuu qaatay lidaalika waxay tahay hada aragtid aaba kasto qaadanaya gabdhihiisa xigmadahooda waa aaba aqli badan gabdhahana waxa lagu yaqaanaa waxay tahay xiliyad adag inay aqliga iyo wanaaga إلهي سبحانه وتعالى قلبك وقليه سيدا يعني نبي موسى عليه السلام قبل أيود بادسي هذا كهن سلمى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ديسا وحلمت لجوا أي أمر كيسا قادم وين يقول هذا يا رسول الله أذيك أن أبلاو كده أمر كاجوا قادم يعني أيوة ورسم بإيهات صحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم ذلك وحنك ولا وحيد هاي دمك عقلك وضع عنك فأيديسا إن شاء الله تعالى إلى الساس يوم قبرية marka uu dhageystay talada gabadhiisa ayaa aabaha wuxuu u wacay waxay tahay nabi muuse wuxuu ku yiri waxay tahay muusoow waxaan rabaa inaan ku guuriyo labadeeda gabdhood mid ka mid ah aadna ii shaqaysid 8 sano ina ii shaqaysid hadii 10 aad iga digtidna way ka sii fiican tahay waxaan ka baranaynaa waxay tahay halkaas ma taqaanan waxaan ka baranaynaa waxay tahay aabaha markuu arkay wanaaga nabi muuse iyo markii loo tilmaamay nabi muuse inuu yahay qof fiican oo leh laba dabeecad oo aad u qoox badan oo ah sida gabadha ay ku tilmaantayba qawiyun amiin nin qawi ah adag diintiisa ku adag jir ahaanna adag iyo amiin nin aamin ah oo mas'uuliyad ka bixi kara wax walba lagu kalsoonaan kara iyo wax la mid ah labada dabeecad markuu arkay ayaa isla markii fursadaas ayuu ugu faa'iideystay wuxuu yiri waxay tahay waxaan rabaa ka waran haddaan ku guuriyo labadeeda gabdhood mid ka mid ah qof wanaagsan hadaad aragtid waxyaabaha ka baranayna waxa ka mid ah waxay ku socotaa risaala hooyooyinkii aabooyinka dhamaan iyo qof walba naga mid ah hadaad aragtid qof wanaagsan qof fiican waa fursad qaasatan zamankan hadda aan ku nool lahay lama hela qof yani wanaagsan oo diin leh akhlaaq leh inta aadan waanin qofkaas ka faa'iideyso guurso ka faa'iideyso qofkaas yani حتى النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu leeyahay إذا أتاكم بالعكس sidoo kale haduu xitaa adiga ku yimaado يعني كوالد ahaan haduu ku yimaado xitaa man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawwijuhu النبي صلى الله عليه وسلم uu leeyahay hadii idin yimaado qof leh diin iyo akhlaaq dabeecad wanaagsan leh nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay waxay u guuriya hadii kale waxa dhacaya waxay tahay fasaad iyo aadiyad u badan ayaa dhacaya marka waxyaabahan ka baranayna waxa kamid ah waxay tahay in hadaad aragtid wiil wanaagsan u guuri gabadhaada ama gabar fiican wanaagsan hadaad aragtidna u guuri wiilkaaga insha Allah ta'ala